sida loogu wareeray ajandaha waxa uu ka hadlayo yani nafteyda ugu wareeray laakiin waxaan u fahmay waxay tahay waa laba qodob. qodob koowaad waxa waaye saan u fahmay in usbuucyada soo socda ka dhimanka fadhiga baarlamaanka afartii cutub ee dastuurka la boobsiin rabo. taas waa saasaan u fahmay. maxaa ka dhalan karaan rabaa inaan wax ka yiraahdo haddii saasna uu ku boobsiyo sidii maalmood meeshaan oo ku jiiray haddii loo jiiro maxaa ka dhalan kara inaan baarlamaanka iyo shacabka Soomaaliyeed la wadaago labadaba iyo gogasha ay fidisay Puntland oo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani maalmood sheegay inuu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalkana aqbalay inay Puntland gobol dhigto ajandihiina laga heshiiyey inay gogashaas in la soo weeciyo xildhibaanada qaar dareenkoodana saas uu ahaa saasaan ka fahmay labada ayadana waxaan ka dhihi rabaa horta mudane gudoomiye in aan masiirka dalka ka hadalno wax xun maaha dalka waxaan hor yaalla arrimo waaweyn oo ay ka mid tahay la dagaalanka argagixisada oo ay ka mid tahay admis oo sanadkan dabayaaqadiisa bixi doonta wixii talo nooga yaalla meel oo ay ka mid tahay waa hadalka dowladda federaalka iyo Somaliland oo ay ka mid tahay damaca hadda soo kordhay ee dowladda Itoobiya doonaysa in dhul iyo bad Soomaaliyeed ay ku qaadato sidaan ognahay dowladda Itoobiya aad ay dhexdeeda u qaybsantaa annaguna waan qaybsanahay laakiin ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed wuxuu rabaa inuu dadkiisa ka raarido himilo ay sanooyin badan ku taamayeen inuu u soo xaqiijiyo oo ah inuu bad iyo dhul u keeno annaga waan qaybsanahay taas cagsigeeda waxay ahayd nafteena himilo aan in muddo ah ku taamaynay inaan uga faa'iideysano fursadaas oo ah dadkeena kala qaybsan inaan ku midaysano wadajirkoodana aan ka shaqeyno saas daraadeed asaga tiisi way u socotaa annaga su'aasha taala meesha waxay tahay taani ma noo socotaa dadkeena ma midaysanayna waxaan ognahay Somaliland tabashay ku maqneed go'ashadii iyo tabashadii ay qabtay dowlad dariskeena uga faa'iideystay fursad oo waxay ka siixatay heshiis ay dhulkeena qaarkood ku qaadanayso ma waxaan rabnaa inaan dowlad goboleed kale iyo maamul kale aan tabasho kale haddana u abuurno oo horteen ay ku dhaqaaqaan mise waxaan ka shaqaynaynaa wax kasta oo dadka isku hay kara midnimadana ka shaqaynaya su'aashaas waxay u taallaa xildhibaanada baarlamaanka waa garan karaa mudane gudoomiye in xildhibaanada ay walwal ka qabaan kuraastooda iyo dib u doorashada oo xildhibaan kasta oo soo maray waxay dadka qaarkood u bixiyeen magafayaal siyaasadeed inay ka soo hoos baxeen oo kuraastii dhibaato weyn ay ka jirto sidii midtaamka markii la gaaro waa caadi kala barka xilliga markii la gaaro xildhibaan walba walwal iyo kulayl soo qabto meeshii ma u noqon kartaa inuu is yiraahdo arintaas waxa waaye waa legitimate concern waa dareen jiro oo meesha yaalla waay laakiin taas macnaheedu ma aha in aan isridaano saan u doodayn inuu waqtiga ugu dhamaado maaha maxaan ka wadaa taas dhammaanteen doorasho qof iyo cod aan rabnaa waa sax dhammaanteen waxaan rabnaa nin dowlad goboleed jooga oo ku takrifalaya awoodiisa kursiga xildhibaanka asaga jaangoynaya inaan ka hoos baxnaan rabnaa laakiin sidee su'aasha sida saxda in looga wada hadla tahay waxaa waaye sidee ta kale mudane gudoomiye dastuurka sidiisaba horta waa inaan isla fahnaa dastuurku wuxuu ka kooban yahay dijuro oo ah dawladda sida loo organize gareynayo awoodeeda ayada iyo muwaadinka xuquuqda ka dhaxaysana lagu qeexayo iyo de facto meeshii laga fuli lahay ah haddaan tusaale basiid u soo qaato sheekha masaajidka jooga midna fadwo bixiya waxaas waa xalaal oo dhaha waxaas waa xaraam laakiin qaadiga maxkamadda jooga go'aanka oo rido fulow leeyahay awood fulisaa jirta annaga kaalinteena waxay ku ag tahay dijuro fadwo ku ag tahay de facto yaa haysta awoodda de factada ah oo waaqic yaa haysta maanta ma naga haysana meesha waxaa fadhiya gudoomiye baarlamaan hore laga yaabaa gudoomiyaalka oo deegaankooda tagi karin ama xildhibaanada deegaankooda tagi karina fadhiya awoodda de factadu yaa haysta waxaa haysta niman la yiraahdo dowlad goboleedyo waagii ay dowladdii maxkamadaha ee dowladda Cabdullaahi Yusuf dagaalamayeen ayaa adduunku wuxuu ku wareeray waxaa la yiri de facto caasimadii iyo garaamkiina maxkamadii haysto dijurigii sharcigiina waxaa haysta dowladdii ku meel gaarka ahayd see la isku waafajiyaa annaga waxaa ka rabaa waxa waaye annaga fadwadii iyo sharcigii aan haynaa sax waaye laakiin fulintii haysta annaga haysan
haddaa marka ninka fulinta haysta ignore garayso tiraahdo baarlamaankana iskale wixii annagaa go'aan ka gaarayno annagaa masiirinayno waa waxa xildhibaan kooshin uu sheego dhowr iyo 10 qaraar ay fuli waayeen sababtoo ah meesha ay ka fuli lahaayeen dad kale jooga annaga aan ahayn oo fulintii looga maarmin taas waaye midda keenaysa marka annaga iyo ayagaba kalama maarano inaan wada shaqeynaa ku qasbannahay inaan isku imaanaa ku qasbannahay madashaas ama madaxweynaha fidiyo oo baarlamaankii iyo dowlad goboleedyadii iyo siyaasiyiintii qaara waxay leeyihiin siyaasiyiin maxaa looga baahan yahay anigii madaxweynaha xilka fadhiya annagoo xilhaynaa meeshaan joogno madaxweynihii kalaan jaaliji garaynayna soo ma ahayn oo maxaan ahayn annaga markaas maxaan ahayn ii sheega marka halkaan fadhino midowga musharaxiinta ahayn oo waxay xildhibaan mursal soo ansixiyay aan diidayni maxay ahayn annagu shiyaada waa nagula jira dadkii diidaya oo maxaan ahayn oo markaasoo siyaasiyiin ma ahayn ma dowlad goboleedka ka talinayna mise guddoon baarlamaan aan ahayn politicians aan ahayn taas maxay sheegaysaa lagama maarmo qof laga maarmi kara dalkan male xaaladda hadda aan ku jirnole waxayba digteed garaynaysaa oo waajibinaysaaba inaan midnimo wada jir ka shaqayno wax kasta oo keeni kara kala qaybin aan ka fogaano because waxaan idhi ninbaa dalkiisa iyo dadkiisa wuxuu ku soo dagaal geliyey himilo aad weligeed ku taabaysaa idii xaqiijinaya oo in ku midaynaya soo annagana maaha inaan dhahno himiladii aan dadka ku miday lahayna haysanaa maanta maxaan marka uga shaqaynaynaa dad inaan qaybino hadday puntland gobo dhigtay oo madaxweynihii aqbalay waa laga yeelayaa walaalo waxaa leeyahay waa ogolnahay maxaad noo haysaa haddaad buur saaran tahay ka soo deg dhulka imaaw aan dhulku wada hadalno haddaa annaga marka xildhibaanadii aan nahay labadii golaa go-aan kale aan buur fuulno dowlad goboleedan ay buur fuulaan halkaan aan naalna maanta waxaan dhegayso maaha de facto awood annaga ma lihin waxaan uga baxayaa dowladda maanta jirta laba arrin ay u baahanta war dastuur la-aanna ma hayso 114 qodobo dastuura qoran laguma dhaqmo intiisa badan yaa ay dhihi kara waa lagu dhaqmaa laguma dhaqmo maxkamad dastuuriya inaan sameyno ma sameynin guddiga adeeg dastuurka inaan sameyno ma sameynin guddigii la dagaalanka corruptionka musuqmaasuqa inaan sameyno ma sameynin dastuurka ma lagu dhaqmaa hadda xukuumadda qodobkii 99 jibinayna hadda siyaasadda waxaa iska lahayn xukuumaddii reer wasaarihii dastuura ku dhaqanaa war dastuur laguma dhaqme baahida dastuur u dhameystirana nama haysta waxa ina haya inii sheega meesha uga baxa waa meesha waxaana hayo extension of state authority aan lahayn awoodda dowladda waa meesha ku gabagabaynayo awoodda dowladdana aanan meel gaarsiisanin fulinteeda dastuurka haddaa dhamaystirno su-aalaan weydiinaa ma jili baan tegi karnaa dastuurka haddaa dhamaystirno muuse bixi ma ka celi karnaa inuu abiy axmed heshiis la galo dastuurka haddaa dhamaystirno dhagxaanta magaalada taale amni darada ma qaadi karnaa dastuurka haddaa dhamaystirno awoodda dowladda inay faafto maxay ka taraysaa waxa awoodda dowladda inay faafto wax ka taraya aan ka shaqeyno waxa awoodda tayeynta dowladda hay-adaheed in la dhiso wax ka taraya aan ku mashquulno oo ah la xisaabtanka xukuumadda la xisaabtanka hay-adda fulinta iyo isku soo dhoweynta wadajirka dalka iyo dadka aan ka shaqeyno laakiin haddaan isku mashquulino maanta oo dhan wax annaga aan ka tarayna aysan jirinin oo qaraarkii aan soo saarnaana beri derbiga lagu dhufanayo ugu dambayntiina doorashadii dadbeed aan u noqon doono waa ayaan daro waxaan uga baxayaa mudane guddoomiye meeshaan waxaa looga baahan yahay sharciga doorashooyinka iyo sharciga xisbiyada iyo sidii diiwaangelinta dadka sidii loo rajistar garay lahay say u coday lahaayeen doorasho saan u sameyn lahayn tii ka fiican waxayna u baahan tahay heshiis wadareed oo annagana sharciga aan leenahay haddaan labadii golanahay siyaasaddana dadka de facto waaqaca jooga lagula heshiinayo farsamada dad tighnikaale loo daayo oo say u meelmari lahayd noo keena u baahannahay